xalay waxaan ku arkay dhacdo aad u xanuun badan cisbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho. waxaa meel la isugu geeyay dhammaan dadkii meydadka ahaa ee qaraxa ku soo dhintay oo qol qura ayaa la isugu geeyay meydadkii. qolkaasi waxaa gali karay oo kaliya misna loo fasaxayay qofkii ay qof ka maqan tahay oo eheladiisa ah misna baadigoobaya oo nolol iyo geeri ku raadinaya. sidoo kale waxaa loo ogolaa mas'uuliyiinta kormeerka ahaa ee halkaas imaanayay. weliba qaybta meydadka ah waxaa buux dhaafiyey boqolaal qofood oo ay eheladoodu ka maqan yihiin, cisbitaalkana u soo raadsaday haddii ay nool yihiin oo ay dhaawac yihiin amaba haddii ay dhinteen oo meydkoodu cisbitaalka la geeyey. iridda hore ee qolka meydadka ah waxaa laga celin waayey hooyo aad u tiiraanyasneed, murugoonaysay, calool xumo ay ka muuqatay. waxa ay dhahaysay waxa iga maqan dhammaan dadkaygii ee walaalayaal, iridda mar hale ii fasaxo. xitaa waxa ay sugaysay inta dadkii iyadu ka horeeyay ee qolka meydadka ku jiray ay qolka ka soo baxayaan, oo waxa ay dhahaysay bal gudaha mar hale ii fasaxo. hooyo waxa ay dhahaysay waxaan lug iyo carar aan ku tagay in ka badan 40 hosbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho. waxaa iga maqan 3 qofood oo ehelkaygii ah, wiilkaygii curudka ahaa iyo gabadhaydii aan dhalay iyo sidoo kale ninkii gabadhaydii qabay. hooyadii waxaa lagu fasaxay in ay gasho qolkii meydadka. iridii hore ee qolka inta aysan gelinba waxa ay aragtay oo madaxiisii aqoonsatay meydka wiilkeedii curudka ahaa. sidoo kale waxaa geeskiisa yaalay seedigiis, halka xitaa gabadhaydii laga helay qol kale oo meydadka la dhigay. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. 3 qofood oo ay baadigoobaysay ayay la kulantay meydadkoodii. hooyo bannaanka ayay u soo baxday iyada oo quus, ooyin, murugo iyo xanuun uu ka muuqdo. waxa ay ku celcelinaysay ilaahu adigaa i siiyey oo iga jeclaaday, ilaahu samir ayaan ku weydiistay. waxa ay tiri waan quustay anigu ee goormee la aasayaa ubadkayga. meel cidla ah ayay iska fadhiisatay. dadkii ayaa u tegay oo samarsiiyey iyadoo weliba aad u tiiraanyasna. runtii xalay ka hor noloshaydu indhahayga ma aanan saarin. wallaahi dad la leeyahay ehelkaagii oo kaa maqan misna aad raadinayso qolkaa meydadka ka dhex raadso. runtii waa murugo iyo xanuun iyo urkutaalada laga dhaxlay musiibadii shalay ka dhacday isgooska Soobe. ilaahu u naxariiso dhammaan intii ku geeriyootay ee shuhadada ahaa ee halkaasi lagu xasuuqay. dhaawacyaduna ilaahu caafimaad sii, ilaahu u boogadhay. qoraalkanna waxaan ka soo xigtay oo facebookiisa ku soo daabacay Dr. Gaagaale General Hospital.